Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkanan maanta waxaynu ku soo koobaynaa filim comedy ah oo ku saabsan cilmiga sayniska oo lagu magacaabo Nutty Professor. Fadlan inta aynan muuqaalka hore u galin ha ilaawin inaad nagu soo biirto muuqaalkana like saar mahadsanid. Sheekadu waxay ku socotaa bare saynisyahan ah oo aad u sareeya oo miisaankiisuna aad u culus yahay. waxaana lagu magacaabaa Sherman Clamp. ardaydiisii iyo dadka uu la shaqeeyo aad ay u jecel yihiin balse culayskiisii ayuu dhibaato badan kala kulmay. maalin isagoo u soo baxay shaqadii uu ka hayay kulliyadda Wellman wuxuu arkay in ka badan 5,000 oo jiir ah oo ay buux dhaafiyeen goobta. xaaladdu aad ay isu xumaatay. jiirkii waxay bilaabeen in ay dadka hoos galaan xitaa raashinkii ay dhexgalayeen oo meel kasta qalalaasa ay ka abuureen. xayawaanadan waxay ahaayeen kuwa shaybaarka ku jira oo si uun loo fasaxay. kadib markii la baaray ayaa la ogaaday in maalintii hore Sherman uu calooshiisii ku taabtay badhanka markaasna ay qasnadaha furmeen isagoo aan ogeyn. dhibaatadaas oo dhan calooshiisii ayaa sababtay. Sherman iyo kooxdiisu waxay tijaabiyeen qaacido dib u dhis ku samaynaysa DNA ee qofka buuran ka dhigaysa inay si fudud u lumiyaan miisaankooda weliba si degdeg ah. Serumka oo daawada ahayd waxaa loo isticmaalay jiirka la dhaho Shelley. natiijaduna waxay sheegaysay in jiirku uu lumiyay 3 wiqiyadood maalin gudaheed. tani waxay caddaynaysaa waxtarka daawada. si loo ogaado wax badan oo ku saabsan dabeecaddiisii ayaa madaxa shaybaarka Sherman ee la dhaho Jason soo jeediyey kordhinta qadarka. Shelley waxaa la quudin jiray daawada laakiin Sherman waxa uu u maleynayay in ay khatar ku noqon karto xayawaankan. intaa kadib waxaa looga yeeray xafiiska dhiinka ama gudoomiyaha si uu ugala hadlo dhacdada xayawaanada shaybaarka ku jira. Sherman waxaa la ogeysiiyey in dhacdadan aweed waaxda sayniska ay ku weyday dhaqaalihii ugu badnaa. nin lagu magacaabo Harlan oo ah ardaygii ugu dambeeyay ee ka baxay dugsiga oo qorsheynaya in uu $10 milyan ugu deeqo kulliyadda. gudoomiyaha ayaa uga digay ardayda inay ka digtoonaadaan tijaabooyinkiisa sababtoo ah ma awoodaan inay khasaariyaan ardaygii ugu dambeeyay. inta lagu guda jiray fasalka Sherman isagoo wax qoraya ayaa calooshiisii wax titraysay. ardaydii ayaa ku qoslay isagiina uuba la qoslay. kadib waxaa timid macallimad cusub oo la yiraahdo Miss Carla. waa gabar ku takhasustay chemistry-ga oo wax ka dhigi doonta hoolka. Sherman waxaa isla markiiba la dhacay quruxdeedii iyo naxariisteedii. ayadan waxay muujisay inay tahay qof aad u jecel shaqadiisii oo ay weligeed jeclayd inay la kulanto. maalintaas kadib Sherman ayaa casho kula kulmay qoyskiisii oo dhammaantood wada buubuuran yihiin. wuxuu ogaaday inay leeyihiin dhibaato laakiin aabihii ayaa ku faana in uu buuran yahay oo aan caafimaad qabin. markii uu arkay in Sherman uu wax yar ka cunayo raashinka ayuu u sheegay in uu wax walba adduunka yaallo samayn karo balse ma aha inuu miisaankiisa iska dhimo. mid ayaga ka mid ah ayaa waxa uu leeyahay dhaqan aad u xun. si aan kala sooc lahayn ayuu raashinka u cunaa ilaa heer uu isku saxaro. Sherman waxa uu arkay inay tahay wax laga yaqiiqsoodo. sidoo kale aabihiisii xitaa ma dhaqan fiicnayn. marka uu goobta ka tagay si ay u nadiifiyaan meeshii Sherman hooyadiisii Anna ayaa dareentay in uu dhibsaday hadalka aabihiis. waxay bilowday inay kula hadasho hadallo wanaagsan oo ay dhiirigeliso ayadoo ku dhawaaqaysa inuu aabihiisii gudaha ka fiican yahay. Sherman ayaa dhiirigelin ka helay hadallada hooyadii. wuxuu go'aansaday inuu xiriir u soo bandhigo Miss Carla. isla markiiba wuxuu u tagay gurigeedii si uu u soo bandhigo. si lama filaan ah ay isla markiiba aqbashay xiriirkii. waxay go'aansadeen inay maalinta fasaxa ay isla aadaan meel lagu magacaabo The Screen. kadib waxa uu ku soo laabtay gurigiisii isagoo dhoola cadayn wejigiisa ka muuqata ayuu qoobabka ka ciyaarayay oo weliba aad ugu faraxsan inuu ugu dambeyn la haasaabay qofka uu jeclaa. kadib isagoo TV-ga daawanaya ayaa hurdo la tagtay. wuxuuna ku riyooday iyagoo xeebta wada aadeen wuxuuna isku dayay inuu romantic jiro balse culayskiisii dartii ay gabadhii bacaadka ku aasantay. Sherman ayaa si naxdin leh ugu soo toosay daadiyaha barnaamijka TV-ga oo ku qaylinaya oo leh ahaa waan awoodaa. ereyadii ayuu ku celceliyey oo uu dhiirigelin badan ka helay in uu si uun u dhimo miisaankiisa. maalmo kadib Sherman waxa uu bilaabay inuu aado fasalada jimicsiga iyo miisaan dhimista. hase ahaatee waxaa sugaysay shaqo adag si uu u gaadho yoolkiisa. kadib lamaanihii waxay maalinta jimcaha aadeen kalaabka waxayna isla qaadanayeen waqti qurxoon iyagoo haasaawe isaga jiraan. waxaa masraxa soo galay majaajiliste oo lagu magacaabo Reggie oo soo bandhigay bandhig majaajil ah isagoo ka maadsanaya muuqaalada daawadayaasha
midba midka kale. Marka uu arkay Sherman, majaajilistaha ayaa bilaabay inuu bartilmaameedsado Sherman. Dhulka ayuu ku jiiday, si xun buu u aflagaadeeyay. Sherman wuu ilmeeyay. Kadib bandhiga taariikhiga ah ee foosha xun, Sherman wuxuu u kaxeeyay Carla guriga si uu u dareemo ficnaan. Waxay u sheegtay inuu yahay nin firfircoon. Shermanna wuu u mahadceliyay. Gurigiina ayuu ku soo laabtay. Isagoo niyad jabsan oo keligiisa ah ayuu bilaabay inuu cuno cuntooyinka lagu cayilo. Ugu dambeyn wuu miyir beelay oo waxa uu ku riyooday inuu wadne xanuun la jiifo sariirta isbitaalka, oo uu si xun u weynaanayo oo uu noqday mid aad u weyn oo dunida dhan laga cabsanayo. Kadibna wuu qarxay, magaaladii oo dhan ayaa burburtay. Kadib waxa uu ka soo toosay sheekadii qarwiga ahayd. Hadda waxa uu gartay inuu marayo meesha ugu dambaysa ee cayilmadiisa. Sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu daawadii seeramka ahayd uu shaybaarka soo saaray uu naftiisii ku tijaabiyo. Saqda dhexe ayuu aaday shaybaarka. Kadib daawadii ayuu diyaariyay, wuuna cabay. Marka hore tijaabadu waxay noqotay musiibo, iyadoo kombiyuutarku cilad ku timid. Garaaca wadnihiisiina aad ayuu u koray. Kadib marka uu Sherman dhulka ku dhacay, ay shaashadii jawaabta soo saartay iyadoo leh in dib u dhiska DNA uu ahaa mid lagu guuleystay. Subaxii dambe Sherman wuu soo toosay, wuu isku naxay markuu muraayadda eegay. Waxa uu noqday nin dhalinyaro ah oo taam ah oo ka duwan habeenkii hore. Waxa uu ku sigtay inuu ooyo markuu arkay inuu ka badbaaday cayilka. Indhihiisii way aamini la'yihiin waxay arkayaan. Waxa uu awoodi waayay inuu xakameeyo farxadiisii. Dibadda ayuu u cararay isagoo aad u faraxsan. Meesha ugu horreysa ee uu tagay waxay noqotay suuqa dharka ee Spandex. Muraayadda horteeda ayuu dharkii isku tijaabinayay. Maalinta xigta waxa uu aaday shaybaarka. Kadib waxaa timid Carla iyadoo raadinaysa Sherman. Waxa ay garan weyday kan hortaagan inuu yahay Sherman, sababtoo ah muuqaalkiisii ayaa isbedelay. Sherman sidoo kale ma rabin inay ogaato inuu isbedelay oo uu isagu yahay odaygii buurnaa. Sidaa awgeed waxa uu isku bixiyay magac kale oo la dhaho Barry Love, oo uu isku baray inuu yahay kaaliyaha shaybaarka. Sidoo kale wuu la haasaabay, wuxuuna weydiistay inay kalaabka aadaan. Markii hore Carla way ka cagajiday, balse way ogolaatay. Intay sheekaysanayeen, faraha Sherman waxay bilaabeen inay bararaan, taasoo muujinaysa inuu ku dhow yahay inuu isbedelo. Wuu u cudur daartay ka hor intuusan bannaanka u saarin. Mar kale Carla waxay la kulantay Sherman oo u sheegtay waxa ku saabsan arrimaha saaxiibkiisa Barry. Sherman ayaa ku dhiirigeliyay inay tagto oo ay aragto sida uu u wanaagsan yahay saaxiibkiisa Barry. Muuqaalkan soo socda ayaa Barry waxa uu kalaabka ku soo galayaa gaadhi sporti ah oo aan weligiisa awoodin inuu dhex fariisto ka hor intuusan isbedelin. Isaga iyo Carla oo si wada jir ah kalaabka ku soo galayaan. Sida caadada ah, Reggie waxaa lagu soo dhaweeyay masraxa bandhiga showga. Markan Sherman kalsooni ayuu isku arkay. Aflagaado ayuu dib ugu celiyay majaajilistaha isagoo ku jeesjeesaya daawadayaasha hortooda. Habeenkaasi waxay galeen dagaal, wuuna ka guuleystay Reggie, wuxuuna ku garaacay piano. Dadkii oo dhan ayaa ku riyaaqay waxa uu sameeyay. Sidoo kale Carla way la dhacsanayd, waxay wadaageen shumis iyo daqiiqado jacayl ah. Laakiin isla markiiba Barry bushmihii hoose ayaa bilaabay inuu bararo. Waxa uu ka cudur daartay inay tahay falcelin xasaasiyad. Kadib dibadda ayuu u soo cararay. Isla markaasi kaaliyaha shaybaarka Sherman ee Jason ayaa ku dhacay baarkii oo uu arkay kabalyeeri gacanta ku haya kaarka Sherman. Laakiin waxaa loo sheegay in kaarkan uu leeyahay Barry. Kadib uu raacay baabuurkiisa. Jason waa uu daba raacay, laakiin Jason waxaa la yaab u noqotay markuu arkay Sherman afkiisii weynaanaya iyo lugihiisii weynaanayaan. Markuu si buuxda u isbedelay, kaaliyaha ayaa garwaaqsaday waxa dhacaya. Kadib Sherman baabuurkii uu ka soo bixi kari waayay. Waxay noqotay in baabuurka la duleeliyo si uu uga soo baxo. Subaxda dambe aad ayuu uga soo daahay fasalka. Ardaydii oo dhami waa ay ka wada baxeen fasalka, balse waxaa sugayay maamulaha oo caraysan. Waxa uu ka hor yimid Sherman gaarigii sportiga ee uu Barry ka soo iibsaday, wuxuuna Sherman ku handaday in uu dili doono haddii uu hal mar khalkhal galo. Waxa uu dejiyay kulan dhex maraya Sherman iyo ardaydii ka qalin jabisay kulliyadda Hartley. Sherman waa inuu ku qanciyaa Hartley inuu maalgeliyo miisaanka daawada serum ee mashruuca uu ku howlan yahay. Markii dambe Sherman ayaa la kulmay Carla, wuxuuna ka waraystay xaaladda Barry. Waxayna u muuqatay inay ku weerartay inay ka heshay oo ay ka xuntahay habdhaqankiisa. Sherman ayaa Carla ka codsaday inay la qadeeyaan familkiisa. Way ka ogolaatay. Kadib qoyskii ayaa weydiinaya su'aalo aan caadi ahayn oo ku saabsan xiriirkooda. Carla ayaa si muuqata u dhibsatay. Taasi waxaa ka sii darnaa marka uu Sherman aabihiisi si isdaba joog ah aariyada iska fasaxayay.
musiibada cashada kadib Sherman wuxuu Carla u kaxeynayay guriga waxa uuna raaligelin ka bixiyay dhaqanka qoyskiisa. Carla waxay doonaysaa inay wax badan ka ogaato ninka la dhaho Barry waxayna rajaynaysaa inuu dib u soo waco. Sherman waxa uu gartay inuu la joogi karo isagoo iska dhigayo Barry oo uu isbedelo mar kale, balse kaaliyaha Jason kuma faraxsana isbedelka. markasta oo uu Sherman u qaato heerka daawada serumka ayaa kor u kaca si xad dhaaf ah taasoo ka dhigaysa mid qalafsan. haddii tani ay sii socoto muddo dheer, Barry ayaa la wareegayo booska Sherman. habeenka waxa uu la soo degay Carla mar kale ayuu u kaxistay hotel oo ah hotelkii hore. Harlan waxa uu sugayaa inuu soo bandhigo fikir miisaan dhimista ee daawada serumka, laakiin waa uu u sheegay oo uu sharaxay serumka isaga oo la sheekaysanaya hablaha hotelka jooga oo uu la hasaabaya ayuu dhammaantood ka xaystay. balse Carla waxay u malaynaysaa in ay tahay wax laga xumaado, laakiin dan uma laha sida ay u malaynayso sababtoo ah waxa kaliya ee uu rabo ayaa ah inuu gabar la joogo. Carla markay uga tagtay hablihii kale ayaa maamulihii wuxuu siiyey booska Sherman, saaxiibkiisana wuu diiday. Barry habeenka intiisa kale waxa uu si bareer ah ula caweynayay dhowr dumar ah. subaxiina wuxuu isku bedelay Sherman waxaana uu ku jahwareeray sida uu kula joogay dumarka. naxdin iyo fikir ayuu galay, xitaa wuxuu isku maleeyay inuu gudihiisii lagu dhex nool yahay. Carla waxyar kadib way timid waxayna aragtay Sherman oo la jooga hablo badan. waxay u malaynaysaa in Sherman uu daacad u yahay, isagana sida saaxiibkii oo kale ayuu noqday. Sherman waxa uu aaday xafiiska wuxuu ogaaday in maamulaha uu shaqada ka eriyay oo uu u dhiibay booskiisii Barry. Sherman waa uu garan waayay waxa uu sameyn lahaa. markuu guriga yimid waxa uu si lama filaan ah u shiday CVR-ka waxa uuna arkay in Barry uu fariin uga tagay isaga oo Sherman ku caayaya noloshiisii caajiska ah, wuxuuna ku booriyay inuu qaado daawada serumka oo uu naftiisii bedelo. caaydu waxay ku dhiirigelisay inuu gebi ahaanba baabi'iyo daawada serumka oo uusan mar dambe u ogolaan Barry inay aadaan shaybaarka oo ay bilaabaan inay burburiyaan dhammaan shaybaarada serumka. Sherman waxa uu kabasho ka cabay cabitaan cunto isagoo aan ogeyn in saaxiibkiisii uu ku buuxiyay daawada serumka. mar kale ayaa waxa uu isku bedelay Barry. kadib markii uu ka tagay, Jason waxa uu arkay kombiyuutarkii oo bliqbliqleynaya fariin digniin ah oo sheegaysa heerka testosteronka ee Barry waa heer aad u sarreeya. haddii uu mar kale cabo daawada serumka waxaa laga yaabaa in uu dilo Sherman gebi ahaanba. Barry ayaa hotelka ku damaashaadaya. dhanka kale, Barry ayaa soo galaya ama soo fuulaya masraxa isagoo qof walba dareenkiisa soo jiidanaya. isla markiiba wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo saameynta daawada serumka. daawadayaasha ayagoo la yaaban jirkiisa kala barbarka ah ayaa qof walba ka yaabiyey isagoo qarka u saaran inuu cabo qiyaasta labaad ee daawada serumka. Jason ayaa yimid oo joojiyey, laakiin gacantiisii si lama filaan ah ayay u weynaatay oo uu isku dayay inuu naftiisii ku ceshado. Sherman waxa uu bilaabay inuu u dagaalamo xuquuqda jirkiisa. waa uu awoodi waayay inuu qaato daawada serum waqtigii loogu talagalay oo uu dib u noqday Sherman. qof kasta oo meesha joogay oo ka mid ah dadweynihii kasoo qayb galay oo ay ka mid tahay Carla iyo waalidiintiisa ayaa aad uga naxay. Sherman ayaa ku micneeyay in tijaabadii loo bilaabay in dadka lagu caawiyo, balse ay isku bedeshay wax aysan ahayn in la sameeyo. waxa uu ugu dambeyn ku qancay inuu naftiisii aqbalo, isaga oo uu isku dayaya inuu si adag u shaqeeyo si uu u helo jir caafimaad qaba, isagoo u malaynaya inuu niyad jabay qof kasta oo uu isku dayay inuu baxo. laakiin waxaa joojiyey Carla. waxay weydiistay ciyaar, waxayna caddaynaysay inay ka heshay qalbigiisa ee maaha muuqaalkiisii ama jirkiisii. muuqaalkii ugu dambeeyay waxaan aragnaa iyaga oo habeenkii oo dhan wada ciyaaraya. Hartley waxa uu go'aansaday inuu deeqda siiyo Sherman, isagoo ku andacoonaya inuu taabtay hadalladiisii. inkastoo ay tijaabadii fashilantay, haddana waa saynisyahaan cajiiba. muuqaalkani halkaas ayuu ku egyahay. fadlan muuqaalka haddii aad ka heshay like saar, sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, subscribe taabo, asxaabtaadan la sheer garay. mahadsanid.